waxbartaan barwaaqo gaarne asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada janaalka Ustaad Saciid Training. caawa casharkeenna wuxuu ku saabsanaan doonaa sidii aad ku heli lahaydeen softwareki aan ugu adeegsanaynay casharkeenni oo ahaa Photoshop CC 2019. horey waxaan igu sheegay Photoshop CC 2019 inuusan free ahayn oo ay adag tahay ardadu inay helaan, laakiin dadaal dheer oo aan u galay waxaan kusoo guuleystay inaan magaranaysaa soo helo linki aan doonaya ardada inaan la wadaago si qof walba oo danaynaya barnaamijkan uu u helo softwarekiisi free ah. marka linkiga waxaan igu soo diri doonaa haddii Allah uu ogolaado videogan hadda aan duubayo descriptionkiisa qaybtiisa hoose ayaan igu soo dirayaa. marka qof walba oo danaynaya barnaamijkan ha ka faa'iideysto haddii Allah uu ogolaado. aniga waxa igu jira laba software oo kala ah, midna waa 2019 midna waa kan halkan ka arki karaa. waa kan ayaan rabaa in magaranaysa adinka 2019 ka kore in aan nila wadaago haddii Ilaahay idmo linkigiisa, kadibna qof walba qaabka uu soo download garaysan lahaa aan halkan u jooga caawa inaan nii sharaxo. qaybtan kalena waa 2017 waa kii hore casharka aynu ugu bilownay. marka labada waxba kuma kala gedisanaa isticmaalka, laakiin way kala casrisan yihiin. marka bal Photoshop 2019 aan soo kicina asiga laftigiisa suugayahay aragtaan markuu soo kacayo halkan isaga ma eka Photoshop 2017 iyo 19 isaga ma eka. kan ayaana dambeeyay oo cusub oo magaranaysaa ka casrisan kii hore. marka labada software baan ugu jiraan adinkana waxa weeye waa in halkan ayaad ku baran doontaan sida ula soo degi lahaydeen. waa kan marka gudihiisa la galo saan ayuu eegyahay. waa kaas waxa weeye waa softwareka quruxda badan. marka waxaynu guda gelaynaa sidii aad ula soo degi lahaydeen uguna rakiban lahayd computerkaaga. walaal waxa weeye gabi ahaanba hadda waxaan iska saaray Photoshopkii hore oo igu jiray oo ahaa 2019. waa ka hadda 2017 kii kaliya ku haray. sababtu waxa weeye laba software isku mid ah waxa weeye meel kuma soo wada degi karaan, hal computer kuma soo wada degi karaan. marka si aan adinka inuu tusiyo baan uga saaray kaygii. marka hadda ayaan soo dejinaynaa qaabka loo soo dejinayo waa inaad la socotaan. qofkii hadhow magaranaysaa processka aan marayo ku adkaado waxa weeye waa ka caawinayaa haddii Allah uu ogolaado. commentiga waxay ugu reebaysaa waxa weeye videoga hoostiisa, kadib waxa weeye aniga ayaa magaranaysaa ka caawin doona kuna soo jawaabi doona ama numberkaaga ayaa i reebi doontaa. waxaan soo furanayaa Google Chrome. waxa kale uu sheegayaa waa inuu kugu jiraa IDM ama muxuu ahaa mid kasta oo ah download manager inaad heshid nooc doonaba ha ahaadee baa ku khasbanaanaysaa. aniga waxa igu jira download manager noocan waxaa la yiraahdaa EagleGate. marka adigu nooc walba haysatid wuu ku anfacayaa, laakiin EagleGate kaas baa hadda aan ugu adeegsadaa. asagana nigula talin lahaa si aad processkan ugu wareerin inaad magaranaysaa aad isticmaashaan. marka ila socda halkan ayaan ku dhufanayaa. halkan baa waxaan ku paste garaynayaa linkigii aan watay baa halkan ku paste garaynayaa. ila socda linkii waa kan adinkana descriptionka ayaan nii dhigi doonaa. marka linkigu saan ayuu u eegyahay. marka horeba saan ayuu u eegyahay linkigu markuu nii soo furmo hoos ayaa soo aadaysaa. waxaan kaloo kuu sheegayaa
waxaa lagaaga baahan yahay computerkaaga inuu space fiican haysto. Waa kan halkan ugu yaraan windowga uu kusoo degi karana waxa weeye window 10. haddii window 7 kugu jiro kugu adkaanaysaa. window 10 memoryga la iska rabo la iska baahan yahay waa 2GB of RAM required. hard diskiga lagaaga baahan yahay 2GB free space. marka processka waa inaad buuxisaa. waa inaad haysataa waxa ku fududeynaya download manager waa inaad haysataa nooc doona ha ahaado Eagle Gadka adeegsanayo kala ahaado. halkan ayaa ku dhufanaysaa download baa leedahay. kadib halkan waa aragtaa sikimo buu wadaa waa sugaysaa. hadda ayaa download baa ku dhufanaysaa. kadib wuxuu raadinayaa download managerkii adigu kugu jiray sidii ugu dejin lahaa buu raadinayaa softwareka sidii ugu dejin lahaa. marka wuxuu soo qabanayaa download managerkayga. waa kan wuxuu soo qabtay download managerkii ugu jiray. halkan wuxuu ku weydiinayaa meeshii uu kuu dhigi lahaa. meeshii uu kuu dhigi lahaa buu ku weydiinayaa. halkaas ayaan ku dhufanayaa. kadib waa iska xirayaa. shaqadii ayuu wadaa waa kaas. shaqadii ayuu wadaa. wuxuu igu soo dhex dejinayaa waa kan Eagle Gadkii igu jiray ku soo dejinaya. marka ilaa inta uu ka dhamaynayo waa sugaynaa. markuu qaybtan dhameeyo hadda waa downloadingkii weeye. waxa inoo sii haray process kale inta kuma dhamaanin. waxa inoo haray inaan install gareyno oo laptopka ku rakibno. marka waa sugaynaa. qofkii uu ku adkaado qaabka aan wax u soo dejinayo aniga ayaa ka caawin doona. waxaana ku dadaalayaa qof walba oo barnaamijka ku xiran in aan fursad siiyo sidii uu ka heli lahaa barnaamijkan softwarekan sidii ku heli lahaa. hadda ayuu inoo dhamaystirmayaa download garayskii. waxaa inoo dhimanaanaysa installkii. download garayskii ayaa inoo dhamaystirmaya. wax yar ayaa inooga haray. kadib waa aragtaan halkan faylka hadda soo furmaya waa desktopka ayaan dalbanay in uu noogu shubo. marka halkaas ayaan kasii geli doonaa si aan u install garayno. installkii baa inoo dhiman inaan ku rakibno computerka. markaa kadib waa rajeynaa inuu inoo shaqeeyo hadduu ilaahay idmo. waa uu dhameeyey 100 buu soo qoray. okay kan waa iska xiraynaa. marka hore extract all baan oranaa. aan sugaynaa intuu dhammaynayo. shaqadii ayuu wadaa wax yar baa ka harsan. markuu intaa inoo dhammaystiro baan gudaha u gelaynaa oo install garaynaynaa ku rakibaynaa computer. qaybtan ayaan soo furaynaa sidaa u jeedaan. kadibna halkan ayaan kusii dhufanayaa. halkan baan imanayaa setup applicationka imanayaa. right click baan leeyahay. kadib run
administration baan oranayaa ama install saa u garanaysa halkan okay baan sii leeyahay waan rajeynayaa inuu inoo shaqeeyo okay waan ku guuleysanay halkan luqadda bedel buu ka oranayaa laakiin English waa luqadaan u baahnayn marka international baan iska oranaynaa halkan qaybtan ma ogola in la bedelo marka continue baan leenahay hadda si toosa ayuu inoogu install gareysmayaa markaa kadib waxa weeye waa softwarekii waa inoo soo download gareysmay waana ku guuleysanay hadduu intaa dhameeyo shaqada u wado waxaa inoo haray waa softwarekii oo aan isticmaalno waan ku guuleysanay haddii ay kugu adkaato processka aan maray aan wax kusoo download gareynayay insha Allah waxa weeye aniga ayaa ka caawin doona commentiga waxaa kusoo reebi doontaa videoga hoostiisa nambarkaaga ay reebaysaa aniga ayaa kula soo hadli doona kaana caawin doona sida aad softwarekan ku heli lahayd waxa weeye Photoshopku aan hadda haysanaa waa Photoshop CC 2019 free in lagu helaa way adag tahay Google-ka waa ka raadin kartaan lacag badan ayuu joogaa oo gaaraysa $300 shirkadda iskale waa shirkad weyn oo caan ah marka hawl sahlan ha u qaadan hana fududeysanin ka faa'iideyso chance-kaaga wax yar ayaa inoo haray markuu dhamaystiro halkan ayaa si toos uga arki doonaa halkan ayuu toos ugu soo download gareysmaya aan ka arki doonaa halkan ayaan ka arki doonaa sida hadda aan u jeedna halkan kuma jiro Photoshop CC 2019 hadda halkan kuma jiro laakiin markuu downloadka inoo dhamaystiro halka ayuu soo geli doonaa hadda 17 kun baa ku jira arkaysan haday waan ilaha waa ka saaray markuu hadda dhamaystiro halka ayuu ka soo muuqan doonaa sidoo kale desktop-ka ayaan soo saari doonaa hadda uu dhameeyay shaqadii waa dhameeyay waa u dhameeyay waan ku guuleysanay waa u dhameeyay shaqadii waan iska xireynaa shaqadii waa u dhameeyay halkan inaan ka helnaa rajeynaynaa waa kana sida aan ii sheegayay waa ka halkan ayuu ka soo muuqday Photoshop waa inoo joogaa kadib halkan right click baan oranaynaa waxaan sii tegaynaa open file location oo fileku meesha uu ku jira halka ayaan sii tegaynaa kadib waa ka fileka halkan ayuu yaalaa right click ayaan sii oranaynaa waxaan rabaa halkan inaan magaranaysaa aan sameeyo desktop-ka aan uga sameeyo shortcut macni meel position oo aanu hadhow si fudud u isticmaalno waa kan halkan aan keenay kadib halkii ayaan ku laabanayaa halkii aan ka yimid baan ku laabanayaa isla sidii baan oranayaa kadib open file location baan tegayaa kan baan soo koobiyeynayaa linkigan baan soo soo oranayaa kadib kan baan dul imanayaa right click baan leeyahay kadibna waxaan tegayaa open file location baan ka sii tegayaa halkii baan ku soo laabanay basti baan halka ku oranayaa kadib continue baan oranayaa waa kana marka faylka shaqadii waa inoo dhameeyay hadda waynu isticmaali karnaa waynu soo furanaynaa double click baan leeyahay faylkii waa uu soo kacayaa waa inoo diyaarsan yahay Photoshop CC 2019 waa ujeedaan
wuu soo kacayaa waa ku guuleysanay waa kaa soo kacay sidaa ayuu u eegyahay markuu soo kacayo horey baan qaybtii ugu horreysay videoga markaan bilaabayay baan ku soo tusiyay videoga bilowgiisa baan ku soo tusiyay waa kan soo kacaya xogaa culays baa jira maadaama kombiyuutarku shaqo adag uu soo qabtay culays baa jira waa sugaynaa laakiin waa inoo dhameeyey shaqadii waa uu inoo dhameeyey hadda faylku wuxuu sugayaa Photoshopku wuxuu sugayaa inaanu ku shaqo bilowno gudahaan u galaynaa culays baa jira saysaskii halkan waaba iska dooran yihiin marka gudaha u sii galaynaa waa kanaa hadda wuxuu u diyaarsan yahay faylkii in lagu shaqeeyo u diyaarsan yahay uu ka casrisan yahay kii hore oo 17 uu ka casrisan yahay arkaysaan marka shaqadeennii halkaas ayay ku dhamaatay waxa weeye videoga hadduu dheeraaday dee laga raali waxa weeye shaqo adag baynu qabanaynay waynu soo download garaynay waynuna install garaynay hadda waynu haysanaa Photoshopkii asagoo dhammaystiran waa kaas hadda kadib waynu isla jaan qaadaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu